markay sheeka gudubtay warku gaaray dariskee goonyaha magaalada dadku ugu garamayeen laaqiya waa gadeedii laaqiya waa gadeedii laaqiya waa gadeedii laaqiya waa gadeedii sidaada noo gelaysaa kulli wadaag ku racano dadka nooga kaa yimi iyo godobi kugu maqan laaqiyay kulli godobi kugu maqan laaqiyay kugu maqan illeen waa gariyo xariiqi nabsigii aad ku raato soo maraa gurgurtay waxaad galabsataa iman laaqiyaad galabsatee laaqiyaad galabsatee laaqiyaad galabsatee laaqiyaad galabsatee istorto kulla reer ka dhigaybaad soo gabagabayso kurigoodii dumisay laaqiyay kurigoodii dumisay laaqiyay qaybtii hore laaqiya iyo loorkii jacaylka kayan labo istorto kulla reer ka dhigaybaad soo gabagabayso kurigoodii dumisay laaqiya نوضع بيورا مري الحمد لله أنا بربع بين الكوشة هيا أنا تاسع يعني نحمد الحدودنا هيا عند إسكشان نقولنا ساسا كراتين أنا بتحس ساسا كرنا والله هذا شان هو هذا لا بحدود بنا قد حي مركز ده بوحة ربعين هذا ولدكي هيا إذا بنت دي بعلس شيء كذا يديش قلتي أبو أحمد ولا وانا سنرت لكن أعد بعديه هو يدور توخيسينه بعديه هو يدا بأعد توخي وح الله حقرية وده فيني كانوا أنا هذا مكرنا يا حديث أصلا كرتين مك أطول هذا الشيء وديك حرير سميسين بون هذا اللي مركب حسوا أفكارنا هذا والد هذا نور بحية إن شاء الله قناة نستخير فيه إن شاء الله أنا قصة سابع يرون وأي خير بدنا أبي تدبيرات كتشوف جوج له ساسا أنا جيرون أحمدنا أبو ونو نكسنا معنا آدم معنا وأهل كيدت كيادي أبو ونكسن مركوا هوين أبو حتى ساكرتين والحمد لله رب العالمين ونرمين أبو ونرمين إن شاء الله عبد الله وأبو كان أحمد أحمد داوي صادر عين. ألو
halo abo abo iyo waran nabade sama fiicnid abo aad baan wanaagsanay maryan ka waran abo aad baa u fiican tahay abo waxa weeyaan imaka arinkaaga ii sheegaysa lahayd waan wada xidhiidhno waxaan doonaynaa in dib isugu ogaanaysaa dee reerkayga uu soo noolaadaan doonayaa bay tiri abo warun waana wada xidhiidhnaa bay tiri isagaa kula soo hadli bay tiri ii waran abul aad baan sooga fiicannahay haye marka abo dee reerkaygi kama maarmayo waan gartay waan wada hadallaa mar walba waan wada xidhiidhnaa waan gartay marka waxaan isku afgarnay inaan reerkanaga dayna isku kana celiso adaa labadanadaba wakiilnaga oo aabana waan gartay marka aaba arrintaasaan rabay inaan kuu sheego haye aaba waa saxe marka annaas waan iska shaqaystay oo meherad weynonna waan leehay waa gartay marka inaan reerkayga dib aan isooga dhaqdo oon aan isku noqono ayaan aaba rabaa inaad arrintaas noo samayso oo aad isku kana celiso waa arrin wanaagsan aaba waa arrin wanaagsan waa sameyn insha allah bismillah karim iyadana waan ka wada hadalno iyadana waxaan ka hayaa xaqiiqadan ka hayaa iyo wax tiri waan reerkayga doonayaa waa arrin wanaagsan weyn adigu nin wanaagsan baa too reerkiisa dhaqanaye aba wixii tashuushiya xunay ma garanaysaa wax yeelaya reerkiina wax yeelaya iska dhex saartaan ba wanaagsan idinku aad tashataan isku tashataan ba wanaagsan oo wada hadashaan ayaa aaba waad mahadsantahay aaba aad baad u mahadsantahay abaalkaaga aaba insha allah bismillah karim way dhamaan doontaa waan dhamaan dhamaan insha allah bismillah karim ayaa aaba waan ku imanaya ayaa sidaa aad sheegaysa umasoo ii sheego reerkayga baan doonayaa buri aabo reerkayga baan doonayaa ka maarmi maayo buri waana wada xidhiidhno waana wada hadlo annaga waan dhamaysanay adigu maa noo dhinaayo dee waalid noo aho annaga labadeedana wakiil naga ah arrinkaan noo dhamayso noo ducaysaan doonayaa buri de waa hagaag baana marka arku saas u wanaagsan yahay aaba mid baan kaa dardaarmaya hooyadaa baan kaa dardaarmaya aaba hooyadaana steexaaga maaha wanaagaaga ma doonayso waa taqaanaa aaba waad baratay imaka aqoona kuguma laabnay anigu horaan u yaqaana aday aqoona kugu laabnayd oo ninkaas sidaa aad u gashay aqoon la-aan hooyadaa kaa haysan bay ahayd adigu axmed maad necbay axmed waxyeel ma lahayn hooyadaana iyada dakaaweyne wax kasta garanaysa oo mataqaanaaye waxaanay kuu sheegaysaa ma waa run baa lahaay iyo aaba axmed wax yeelaysaa baadi ku yeelaysaa ma lahaay waa run hooyadaa baad aqoon u lahayn axmed maad necbay marka waxa weeye imakana sida hooyadaa saga ilaalin lahayd unfaliba qabahaa reerkiinaasi ma dhisnaaniyo haddaad hooyadaa xidhiir la samayso oo ku sheeg mar dambe aabaan haddaan axmed helo oo mataqaanay aan reerkaygii aan dib ugu noqdo wax dambe aaba iyo cid waxaan ku uri aan aaminayo aaminkii baba iga dhamaaday baa cid aan aaminaya oo maanta adiga aabaha ayaan ahayn maba jirta baa marka aniguna aabasaan reerkayga u dhaqan lahaa iyo filowgeeda gelaya insha allah adiguna aabay ducee oo ku duceeya oo ducaysantay allah idin barakeeya insha allah axmedna waa nimanaya abu lahaa markii la soo hadlayay sax intuuna waan suugi insha allah abdillah karim markaa waan iskii raacin insha allah saasay marka reer ku ahaanaysaan aabo shaaduna bay ducee ma ku ducaynaya ma waa ducaysantiin aabo anigu weligiiba wanaagin ma jecelahay in sha allahu khayr baa ilaahay haydin khayr insha allah ilaahay suki barakeeyo السلام عليكم خير اب صلاة في ناب ادب لو في عين خير اب في عاب خير مريم سلام في ناب خير ابو صلاة في ناب ادب ابو في عين خير اب مريم يورا مريم خير ابو wadagii la soo hadlay waxna waad ii sheegtay arrin aad qurux badan baad ii sheegtay iyana hortaa unbay arrinkaa ka dhawaajiso inaad wada hadasheen oo xidhiidh idinka dhexeeyey ood xidhiidheen ilaa wata arrinkiina la baabiyo la kala duuliyey inaad xidhiidh damba samayseen oo isla go-aansateen in reerkiina dib aad usoo noqotaan oo reerkiina dib u dhaqataan inaad isla gaadheen way ii sheegtay adna wadigii ii sheegay anigana saasa ii qurux badanoo sharafteeda ku jirtaa runtii anna waan isla kii ogolahay waan isla kii jecelahay وانا سوكين تعيني ان شاء الله بسم الله كريم ابو ادب ما صدق اما كوحي كدنبينا واحد مسكين على دونتان وحي خلخل نيريركينا ويلن بركو كتهاي لا قيا ارنكينا وريغو خلا هادلي انو مريم
مريم الله 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 يا آه بريكا سوق كبر قرن ساي marka horna waxa ka lumisay hooyada in magana saasagay Allah in furo mid qaban insha Allah وانا شو كنت عني وسات شكله كل أنا أقول لك وان واي عرقني أيه أو ده أنا قوي عرقني وأنا صمرت مركا أبو ده إن أنا عني مريم كرمار مكرنا ينمو وقتها نما نقول مركا كدي بقصب بين نقطتين عن سلسلة هذا عن سوى الحدن سوى أنت لبكي يسوق قاري أنت هتنا قريدة إيجام قريد مريم لبكي يسيق قاري رفعان تيدا يا موحل كودي كرواهين مركا دي وانا اسكا شقيستو الحمد لله بالوجرا ولا اسكا بداريسي مركا ابو سفي عن او خلاف لهين خلاف تنبع ابو مغلميس ان شاء الله مركا ساسا ولا كنت انا ابي ساسا يا ساريركين ويدون دقالي مكانا اذا كساسو هي لهيدين اذا انا واسو كنت عي هيا وين كاب يا هيا هيا مريم واد مقشا ابو يا ابو اول كيس مدرك انتي خلافكي نصومر يدكي نصومر واتكرم marka kolku wax ku qasadan inaad qof waay araga noqoto waxa ka guud yaa loo baahan yahay oo wixii ku soo maray inuu tacliin ku noqdo marka reerkeenu intuu ku burbur gaadho waa dhinaca kolkii la eego wax culus bay ahayd oo aniga xaqiiqa arrin culus bay iyo ku ahayd adna kolkii waxaa laga yaabaa martabadii hooye iyo aad samaynayseen inay kula fududay marka waxa reerkeenu timinaya dhib ku ah iyo wax kale inaad kala garato yaa loo baahan yahay anna weligay niyaddeeda ma gelin inaan hadal xun ku idhaahdo ya marna inaan hadal xun ku idhaahdo weligay niyaddeeda maana gelin marka insaan reerkeena ku dhaqanayna farxad ku wada noolaana reerkuna waxaa fiican inuu farxad ku wada farxad lagu noolaado waxba lama waayo haddii la faraxsan yahay wax ka maqan reerka ma jiro والله أنا بدي أحضر حماية صحية متقنعة إحنا ذو كذا تجي هي تسمين زمين ما راهي سألنا أنت إنك كلام عشاني ورتا دب نوقفنا مركا إما كانت جورجان نوتي يري أو عن دقينا وواحد بودي يرسمه مركا عابنا دو نوت عيو وكا حالة ميرك عبو ينورسا مركا جورجان مينا تبنو ونحكي صفر حلو ونورا يعني وين نقول نتمنى بسرعة. أيوة تمام. مصابة بحياة. أيوة عايز. بسرعة. أيوة. maxkamadu way noo furan tahay nidaamka maxkamadana hala ilaaliyo joloodka maanta ay taariikhdu tahay 13 bishii 9aad 2009 waxaan gelaynaa faylkii noo mudaysnaa dhibana xeeraliye gobolka Faafan eedeysanayaal Faadimo Saleemaan iyo Mooge Warsame galkan wuxuu mudaysnaa maanta ay taariikhdu tahay 9kii bishii 9aad 13kii bishii 9aad 2009 in ay maxkamaddu dhageysato iyadoo waafajinaysa nidaamka dacwad dhageysiga carruurta sharciga dacwad dhageysiga carruurta iyadoo waafajinaysa in ay dhageysato kii yaraa dhibanaha ahaa inay dhageysato maxkamaddu ay u mudaysnaa maxkamadduna way soo dhageysatay meel gaar ah ay ku soo dhageysatay maadaama ilmo yar carruur yahay way soo wareysatay magaca أفتح موية أفتح سودو أنا وحنا هاي مصطفى الله يرحمه عقب برشة ما يسمى هرتا
waxaan xil saarnahay qaybta carruurta xuquuqda carruurta ilaalisa maxkamadda degmada Jigjiga ilmihii dib loo geystay ilmihii wax la yeelo dhan annaga xaqiisa u soo dhicina oo xaqiisa u ilaalina marka cadaaladii ma hor joogtaa ana saaxiibkaayo oo cidii wax kugu samaysay xataa sharciga lagu maarinaya marka arintan hooyada iyo aabaha si fiican ay diigu sheegtaa wax walba waxba hayga qarin sirtaada cidna ma sheegay waxa aan ii sheegtay aabo ma sheegayo aabo xaq ma dhidno uma sheegay anigu labadeena un bay isla wax ii sheegto marka ii sheeg arinta aabo sidoo ku haya aabo ha wixii gabadh xun haye ay xun baad markii qoyska ay ku qaraacan jirtay haye biya shirkanka 20 ka qaad صح ayuu dhigay shirkanka 20 litir bay ku dhiibi jirtay haye orado soo qaad bay u dhigay orado soo dhaam صح markan u soo dhaamiyana waxay u dhigi jirtay orado hooyaday ayay u soo dhaam صح oo u dhaaminay haye markan u soo dhaamiyana waxay u dhigi jirtay orado qosh qaraac صح markan qaraacana ano ciyaalkii markan daalana ciyaalkii la fadhiiso xaqan ما يقعد شرطيبه صح ما لو ديرها ما لو ديرها wax ma lagu yeelaa dhibaato kale u dil ama wax noocaas mar xunay qabatay haye way dishaa markuu yimaado waxa ku tiraada wuxuu diiday waalashii waxa uu diiday ma ku tiraada way ugu sii daraan صح iskool ma dhigataa may quraanna ma dhigataa sax waxbarashada midna ma dhigatay صح waxbarashada kuma geeynin aabana kuma geeynin cid kalena kuma geeynin صح haye arintaada maxkamadda ayaa maxaan ku dhahay go'aan baa laga soo saaraya waxaad ku noolaan doontaa nolol ka wanaagsan tan sharciga ayaana wax lagaga qaban doonaa dadkii wax ku yeelay maxaan ku dhahay dhibaatadan kuu geysanayay waxbarashaad geli doontaa iskool baa lagu dari doonaa caafimaadkaaga waa la ilaalin doonaa noloshana nolol ka wanaagsan aada u gudbi doontaa narar kalena waa isku soo noqon doonaa insha allah xaaladda waan ka warhaynaa anaguna waan kusoo kormeynaa hadba saad ku nooshahay iyo saad ku sugan tahay inta maxaan ku dhahaa xaaladda ka hagayso waxbarashada iskoolka waa lagu geyn qur-aanka waa lagu geyn nolol aadiya ayaad geli doontaa insha allah saas awgeed waxaa la farayaa dhinacyada in sida uu dhigayo qodobka 148 habka xeerka ciqaabta Itoobiya inay final addresskoodii gabagabadii inay soo jeediyaan waxaana ku horeynaya xeeralyaha gobolka maxkamad sharafta leh way mahadsan tahay kiiskan ilmahan yar ee kiiskan maanta aan dhegaysanayno ilmahan waxa gaadhay dhibaato aad u culus maxaa yeelay 10 sano oo dib u dhaca ayaa loo geystay ilmaha waxbarasho laba siin dhaqankii suubanaa ayaan xataa la siinin la rabay in lagu koriyo ilmaha xuquuqdii ilmuhu lahaa dhammaanteed waa la lumiyey oo eedaysanayaashu way lumiyeen sida ay iyaguba qirayaan tacaddi aada u ballaadhan ayaa ilmaha aabbihii iyo aayadii ay u geysteen oo ku talagala ma aha wax qarsoon oo laftoodu qiraal bay yihiin hooyadii ilmaha dhashay maalintii ay inoo timid ee waddanka ay timid iyo maanta faraq weyn baa udhexeeya iyadii baaba ilmihii la mid noqotayba iminka xadgudubkan ballaadhan ee qoyskani ay ilmahan u geysteen shuruucda caalamka wax ogolay ma jiro hadday noqoto axdiga ilaalinta xuquuqda carruurta ee Afrika hadday noqoto axdiga qaramada midoobay ee ilaalinta xuquuqda carruurta hadday noqoto dastuurka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya hadday noqoto dastuurka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hadday noqoto aadaminimada waa wax aadaminimada ku fool xun waxaana ilmahan u geysteen cadaymo dhammaystiranna waanu u soo dhawaysanay maxkamadda iyaga laftooduna afkooday ka qireen dhibaatadii aanu ku soo gudbisanay
eedda iyada aan kusoo gudbisanay dhammaanteed sidii ay ahayd bay u qirteen waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa iyadoo maxkamaddu raacaysa sharciga u yaalla caruurta ee heer caalami heer etoobiya heer deegaan in marka hore la siiyo go-aan dembiilanimo eedaysanayaasha waana mahadsantay maxkamadda sharafta leh waayahay federal arrestkii aynu soo dhiibinna waxa weye maxkamadda sharafta way mahadsan tahay waxa weeye horta binaadamku wax walba ay ka dhacaan ilmahan yar ilaahay tacadiga gaadhay horta waxa ku kalifay dhibkan oo dhan tii dhashay ee adduunka gudkiisa keentay ayaa horta ilmahan markay dhashay ilmaheedii cidla kaga dhaqaaqday horta oo u qudhay dhib badee gacanka la maxaa unoola aadame waa la ogyahay ilmo gacanta hooyadii ka baxay dulmiyada ay dhibaato u gaarsiinaya horta maxkamadda sharafta leh waa la yaqaana waa la ogyahay tii dhashaba isagoo sabi oo yar aabihii dhabta u saartay oy tahriibtay oy liibiya tagtay oo magafa noqotay oo isdhiibtay tii ilmaha yar tacadiga halkan ku gaaray maanta halkan laynooga sheegay marwadan u geystana ta ku kaliftay waa tii dhashay ma aha tane waayo ilmeheedii cidla kaga dhaqaaqday inay bad ku disho ayay ku go-aansatay oy macallinkeedii ciidamo isla haligmaan hadduu maalinta raaci lahaa ilmahan yaray wuu haligmi lahaa waxaa la ogyahay oo idaacadaha laga dhegaystay BBC Aljazeera kulli ilaa ESTV laga daawanayay sanadkii ay qoftan dhooftay doontii ay raacday badda talyaaniga ku haligantay keligeed baa ka badbaaday gabadhan keligeed markab talyaaniga usoo badbaadiyey muu noolan lahaa ilmaha yar markaa haddii la tahriibto waa maya already weydiisay ka dhigantay ilmahan ay maanta halkan u ordayso ay u doodayso waxa way markaa maxkamadda sharafta leh horta in marwada iyada la ogaado maanta u dacwoonaysaa in ayna ilmahan aabaheed ugu iman karin marwadii korinaysana maanta dhibaatooyinkii ka dhacdhacay iyadii ninkeeda ay xal wanaagsan maanta ilmihii qaadatay oo khaladaadkeeda qaadatay siday maxkamadda horteeda ka sheegatayna cadaaladday garab siisay caddayntii oona waxba ka dhinnayn bay cadaaladda garab siisay maxkamadda usoo bandhigtay oo cadaaladda way garab siisay good face bay kusoo garab dhigtay sidaa darteed maxkamadda sharafta leh waxaa weeye ilmahan in horta labada muwaadin maadaama cadaaladii garab siiyeen iyaguna xorriyaddooda in loo soo celiyo oon go-aan dambiilnimo lagu dhawaaqin waa waalidiin maanta isa saxaya ayaanu ka codsanaa maxkamadda sharafta leh kadib maxkamaddu markay dhegaysatay soo jeedintii labada dhinac xeeraalinta gobolka faafaneed iyo qareenka eedeysanayaasha waxay u muddaysay galkan si ay go-aan uga soo saarto 20 bisha 9aad 2009 taariikhda Itoobiya maxkamadduna way noo xidhan tahay muddan kala maqnaysan ya tan dhafarkii wada aragta chief iyo check buu qaban waay laftayga baad aragtaa ya laftayga baad aragtaa aduma ay soo xasuusan ma xanuunsan ku soo xasuusan ya xasuustana ku soo xasuusan habeenkii ma seexan jir dharaartii hurdo waan iska waayay habeenii dharaar muuqaaga un baa inuu hurmud marka laakiin wax walba inoo soo maray halkaas aan ku iloobayna marxay ma taqaanay in aan wax dhibaato sameeyo oo gaf kasta ka galay ama ogahay sax dhibaato badan inuu ku sameeyo waan ogahay sax laakiin in dhibaatadaas jacayl aan ku qaban bay macnaha waxbaad xumeynaysaa marna ma isma lahayn haddaad isla waxbaad xumeynaysaa oo dhib dhex mid u geysanaysaa oo waxaad qabanaysaa waa wax amba waxaad ku sameynaysaa waan ka xanuunsan amba waa wax kale amba waa kan leeyahay haddaan leeyahay ma taqaanay wax dhibaato ah ay u keenaysaa horta marna ma sameeyaan taa adiguna wad ogtaa laakiin ya hooyadii unbaa dhibaatada ka dambeysay haga dambeysay markii ay ku soo martay iyo dhibaatadii qofkii koobaad ee ku horsooday aanay ahayn inay guriga kale wareegto inay camal laan ku dhacdo inaan waxa taqaanay maalkaaga ixtiisadno aan baabiyisan kulba dhakhtar dad iyo dibad iigi ku lahaa ya dhibaatadaas dhan ta igu darreyd baa ay mugta ka sii yaabay waxa kale oo dhan maalinkii kutaan la gubtay in la wareer wax ahayd xanuunkii mid kolkii aan ogaaday inuu san jiro ya iyadii xanuunka kharash iyo waxaas ma inta maskax ahaantayda markasta adoo dhafoor xun kolkaan soo galo aan ka go'aysay in naxay
أنا يوم موقن خرج كني واحد نجيب بحية عافمات السيد عافمات كده وشو ما إسلاميس أنا هدان إسلاهي يا هدان إسلاهي أحمد دب أوجي سنة أبو هو إذا أنت ما تقول قاعد كسر تيدي كيري يا شالي وده قد يسوق كنتيتي سامحي يا مرة كده ما دنا ولا سكنسي هذا نوع الكلام بهيد أنت كوش هاي تنقول كده أوجت كبهيد يعني كل هو يدي باتها وارون هو يدي الوالد كبهيد والد يا ده مرة يقول هاي حجته هو يدي كقرين كنت عليه هين كنا كنت تشابينيه يا مرة لازم كنت عليه هين كنا إيه يا أحد كتر هذا حنوصنا يا ده بي أردوين نسكور هذا اختار الجاي تايلاندي الجاي هندي الجاي مالكست الجاي يا ده هو يدي واحد صوص على قرن سامبان له يا واحد صوص على أي قرن سامبان له هو يدي ندم حسلان وقف كاوين وحول بس لا قرن يكاوي يا ركسن بالله هو يده waxa ay sheegaysaa runtahayo ya ninkaas markuu laba shilin helo soo doonadu ku jecel ninkaas laba shilin helo naaka dhama fiican maanta doorko bilu ka raacaan balla ya anigu kaliya tan ka duulay waxa weeyaan macnaha yuun Axmed kula guursan naaka yuun agtaada keen ma taqaanaaye ya naxaas waxaan sameeyay jacayl bay si laakiin xumaan bay dhalaysaa hadaan isleeyahay bade ma taqaanaaye Axmed dhibaato u geysanaysa kullu ma sameeyeen xabiib aadna wanaga xumaa marka intii imika aan ka maqnaa oo dhan wallahi billahi taala wal bahar masax ma waxa saacan ka fikir jiray saad mataqaanaaye Axmed suuq ma farta ka saacabahay tan tagan abaha tan ko abo waxa sameeyay Axmed si ya seen noqotay bana ku raali galna soo cili maalintii aan la hadlay yaan ka kartay mugta abo marka dareenkiis markii aan la hadlayn anaan joog way intan waxaan loo xasameeyay garan waayay man telefiisii garaacay صح أبغى قبتي هذا الكيسي بان كدر ما أبو ورت عمر دير ذا بودي إيه قام كو هذا لين صح مركا ويش يا أبو كل أول بينجم مدين مركا أبو أنا وروح أدفي عن يا هلا على راسك تكتكه ورس هرجع بابا كسر قاضيه طمر كبران بري بارك كعنيين هذا بابا سكرات لا هيبة سفي عن بوش نما والله اسكوب حي والله اسكوب بران بري oo waxaan ku ori islaamihii diginta la iska dhigay labadii qoys ee kala guursaday reerka gabadha de wiilkii gabadha iyo maxaan ku dhaaday gabadha reerkoodii ayaa xalay diginta iska dhigay kowde ya maanta bastay baabana harga baaba ka soo qaadayba waa dabayshii iyo boorkii dacagta ay dhulka ku dhufanayeen haye siigadii boorkii wixii weeyaan yaa hooyo siigadii boorkii wixii weeyaan kowde waxaan ku ori adduunka sa isku galeen wala naag buraanburaysay adduunka waxay akhriyeysay anaaba yaabayba waxay isla yaqaanaan waxay isla yaqaanaan ya hala hooyan la yarfadiyaa si kala kugu soo celiyo waayo qofkaad la hadlaysa hooyo waa wiilkan asxaabta ahayna keede wiilkii raacasaaye yiri manjana asxaabta kii dheerayd maanta dawladda la socotay ninkan maxay idin ka dhaxeeyo iskiin daba dhigay asxaabana haya naa waxbaad qarinaysaa iyo wajigaaga waxba kaa soo salag leh maad runta ii sheegtay yaa maad runta ii sheegtay asxaabka waaweyn sheekadani asxaabka waaweyne maad runta ii sheegtida macaan been kuma sheegi kara waxba naad ka ma qarin karee wiilka xiriir baa naga dhaxeeya xiriir baa naga dhaxeeya de xiriirka weyd ka dhaxayn karaaya gabdhuhu way cadaystaan meel cadaysatid waxaaga meel cadaysatida adiga geesinima ma kugu ogaay waa maxay doqonnimada aad la soo baxday yaa doqon may waa sukay ogtahay sidii baan hayaan gabar baa tahay waa lagu la sheekaysan karaa waa lagu jeclaan karaa heede yaa laakiin waxa aad qarinayso walle ani laaqiya la yiraahdaa waxba igama fakadaane maad ii sheegi mise meelahaas ka soo maqlay maalintaas bud madaxa kugu dhufan ma hooyo meelaha ka soo maqlay dad meelaha ka maqli lahayd hooyo meelaha lagaaga nixin lahaa runtan ku sheeg marka wax walbana uu dhaca waxaas soo dhacay lama yiraahday seen ku xalinaaba la yiraahdo marka wixii hore dhan inta ka kaalay إيجسان غير كنا ودقن له يا المستقبل سنسن له إنك مالك أنا نو أديك كاسو رواقي
تشيل العقل ما نين أنا يا ما أنتنا الحمد لله قرقة وين إيو مهرض الله مهرض oo electronic midto saa kala socdo shaqaale joogaani wax walba waan haysanaa maanta sax marka diwaagi horna saanahay waadgeed intii dhaxana saan noqon waadgeed ya lacagteennina waxaynu ku baabiinay waxba iyadoo in fiicneen ba in la soo faarfaado وترى أنا يجي كهل لنا قاعد موت هذا بكحل الفيو مركا حبيبي وقت استوى عن زمان وها وهي الدنيا أنا أركز وهاد كذا اللي بدي وهاد كذا اللي بدك يا وقت استنى ودعم وقت استنى ولا فيشها يقول يقول درب يا كل يعني الحمد لله دبعت كستوك سامر تلفات كستوك سامري كل بدي لو بدل كيس على هلا بليج ما أنت بدل دبعت هذا الشيء كويس ما أنت بدك بدل كيس على كتكشرت الروح لبكو السمية هدوس كرت الروح يا والصحن يعني أنا ونوجهي لكن حبيب معناه حكوا شيء جاي أنا جوحن يا ولك أنت تقص ميسيد أم بدبعته أحمد بيوجي سنة سامرهاي لكن أنا جوحن لا يقدر يسيدي واحد معناه يلي يقول سنة بدي يقف أنا قلت تعال كاي تعال أنك هو قبضتي سنة وقد حتري أي نسميه هي ما وحول بانكرني يا حبلانك هذا يا لأنه تقارنا أدو حاجة وحي هوري كسرت يدا معناها ما كان صار غير عصب مستقبل عصب لسنة الحين المتقنة يفرق كذا كشيء أنا قلنا بالله حكا قاضية وحي دبكو كينية عدة مبارتين الآمن وايد هويدي معانا آمنين بما تسايقش يا لابد نروح جعلكم وكل آمنات مود نعم إيه كانوا مدة إنه كلام مقنن ده أنت إنه كلام مقنن قبل أنا ويجوا مقالة يا ده وقت قبل أسبوع يمينه مقنن عادي يوم بايم مقدر أنا أرتمر اسم الله يندبو أحمد يا ساركيس دبعتها صدقوا سميسة دبو أنت كوجس ونقد أحمد هذا اللي تمي يستقبل تمون نقول سا ما لهين حبيبي إنها رحمانية مجرد مركا وحا ما هذه لا هي حتى ما أنت ودي تشوفني وأنا برادي إني تشوفني وحي نصامري اللو هلك كله بيحب وهي أنا ووالد وحي أنا مقلب تريكر وأن ترينا مركز يا ومرنا إنا نلف عتنا وهو يلف عتنا لف عتنا لو يتحس هو والد يا يلا لفتيدو ساعة أبو سلاده المو كلوب كرسي ما سلا سلاده هنا يدنا سلايد بلغة يا با وديك كمان والد ويان مركا حبيبي نيد خير الشيء ساعة وحول بكوكو شيء وحول بيجي مركا بتقول نيد خير الشيء ونيد الدسو مستقبل كل شيء كل كان كيد سلا سما فعلت علابتي ما تمت هاي وأنا أنت كدجسان حسابية مركا علاب كلا ندبا بيننا قصة ساعتها هاي وأنا هاي مركا حبيبي نيدا خير الشيء سيدا متقنن سكو على الفيوان مستقبل كني أيه غير كننا يا أكو فكرنا مستقبل كنا سنقولس لهاي أنا كفكرنا وياه مركا حبيبي نيدا خير الشيء تدح مانتي هرولان نسكيلودي أنا خير كل ده اللي تشوف تخير بيجا ماما بس أنا نسألك يا حبيبي حاول أقول يا حماية قلنا هي حبيبي اسكت بصالة هاي godkii shalay loo qabo galay ayuu maantana waxaan ku leeyahay dirqi kaga soo saarnay ayuu maanta hadaba doonaya inuu ku noqdo markay sheeka gudubtee warku gaadhay dariskee goonyaha magaalada dadku ugu garamayeen laaqiya waagadeedii laaqiya waagadeedii laaqiya waagadeedii laaqiya waagadeedii
قادنو قليسا كل وذاك الرحانو قفكنوغا كايمي يقربي كوغو مقن لاقيا